khabiir waxaan ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka Mawlid Xaaji Cabdi oo barnaamijka ila tabinaya ayaa inoogu bilaabaya wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda gobolka Bariga Dhexe. Mawlid Mahadsanid Maxamed, inkastoo dadaalada kala diblomaasiyadda ay socdaan oo Pakistan ay doonayso in wadahadalo ay isugu keento wafuudda Mareykanka iyo Iiraan, haddana waxaa sii xoogaysanaya xiisadda dhanka colaadeed iyo hadallada adag ee ay isweydaarsanayaan labada dhinac. waxaana lagu soo warramayaa in sidoo kale arrintan ay ku soo aadayso iyadoo hub urursina uu socdo. Madaxa garsoorka Iiraan Ghulam Hussein Mohseni Jaei ayaa maanta sheegay in ciidamo gaar ah oo ka tirsan ilaalada kacaanka ay u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan haddii maraakiibta Mareykanku isku dayaan in ay soo galaan marinka Hormuz. Wuxuu si gaar ah u xusay boqolaal doonyaha yaryar oo qoryuhu ay ku rakaban yihiin iyo kuwa qaraxyadu ay ku rakaban yihiin ee ku sugan biyaha marinka Hormuz, iyo sidoo kale goobo qarsoodiya oo ku yaal buuraleyda kaabiga ku haya badda jasiiradda Farvar ee waddanka Iiraan. Ghulam Hussein waxa uu sidoo kale uu sheegay in tallaabo sharci ah laga qaaday 3 markab oo ku xadgudbay marin-biyoodka muhiimka ah ee Hormuz maalinnimadii shalay, isagoo oo ku adkaystay in Mareykanku uusan ku dhiirigelin karinin inay u dhowaadaan marinka muhiimka ah ee Hormuz maraakiibta. Madaxa garsoorka Iiraan Ghulam Hussein Jaei waxa uu farta ku fiiqay in ciidamada dalka Iiraan ay ku jiraan heegan sare oo buuxa, isla markaasina ay u diyaarsan yihiin inay cashar ay u dhigaan cadowga iyaga oo taageero ka helaya guud ahaan shacabweynaha Iiraan. Isla wararka Iiraan, laamaha garsoorka dalkaasi ayaa shaaciyay in ay ku fuliyeen xukun dil ah nin lagu eedeeyay inuu basaas u ahaa laanta sirdoonka Israa'iil ee Mossad, isla markaasina xiriir u la lahaa ururka Mujaahidiin al-Khalaqa oo ah urur mucaarad ku ah dowladda Iiraan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Miisaan ee dalka Iiraan laga leeyahay. Wakaaladdu waxay sidoo kale sheegtay in garsoorka Iiraan ay sheegeen in 59 qof oo lagu tilmaamay wakiilla cadow lagu riday xabsi u dhaxeeya 1 sano ilaa 5 sano gobolka Faris ee ku yaal koonfurta waddanka Iiraan. Isla wararka Iiraan, hay'adda duulista rayidka ah ee dalkaasi ayaa si taxadar leh dib ugu bilaabaysa qayb ka mid ah duulimaadyada rayidka ah iyada oo dib loo furay qaar ka mid ah garoomada diyaaradaha, isla markaasina si tartiib loo bilaabay duulimaadyo gudaha iyo dibadda ah. Si kastaba ha ahaatee, sawirada gacmeed iyo xogaha hagidda duulimaadyada ayaa muujinaya in dib u bilaabashadani ay imaanayso iyada oo ay jirto burbur ballaaran oo gaaray garoomo iyo saldhigyo waaweyn, taasi oo ka turjumaysa isku day lagu leexinayo duulimaadyada iyada oo la adeegsanayo kaabayaal dhawaan la weeraray. Dhanka diblomaasiyadda, dowladda Pakistan ayaa muhiimadda ay leedahay muujisay in uu sii socdo xiriirka dhanka diblomaasiyadda u dhaxeeya Iiraan iyo Mareykanka si loo gaaro xal waara oo ku saabsan colaadda. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Pakistan ayaa sidoo kale sheegtay in go'aanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku kordhiyay xabad joojinta ay tahay talaabo muhiim ah oo lagu dejinayo xiisadda, isla markaasna ay filayaan horumar ka yimaada dhinaca Iiraan. Dhanka dhaqaalaha, qiimaha shidaalka qayrin ayaa waxa uu kordhay 1.9% isagoo gaaray $104 halkii fuusto, taasi oo sabab ay u tahay cabsida laga qabo dagaal daba dheeraada oo ka dhaca Bariga Dhexe, sida ay sheegtay CNN. war kale oo la xiriira xiisadda colaadeed ee Bariga Dhexe, wafuudda ka kala socota Lubnaan iyo Israa'iil ayaa la filayaa maanta inay ku kulmaan magaalada Washington DC ee waddankaasi Mareykanka, iyadoo lagu soo warramayo in Beirut ay qorsheynayso in ay codsato in 1 bil lagu kordhiyo xabad joojinta waqtigeeda uu dhow yahay ee dhamaadka. Geesta kale, Hussein Fadlallah oo ka mid ah xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Lubnaan kana soo gala dhanka ururka Xisbullah ayaa ku tilmaamay wadahadallada tooska ee lala yeelanayo Israa'iil qalad weyn oo kordhinaya kala qaybsanaanta gudaha Lubnaan. Wuxuu ka digay in la galo iska horimaad gudaha ama dagaal sokeeye, isagoo ku baaqay in dib loo qaabeeyo siyaasadaha iyadoo la yaraynayo wadahadallada lala yeelanayo dhanka Israa'iil. Fadlallah oo dadka wararka fidiya kula hadlayay maanta magaalada Beirut
ayaa carabka ku adkeeyey in dowladdu aysan ku koobnayn awoodda oo keliya balse ay ka kooban tahay dhammaan shacabka Lubnaan. Wuxuu sheegay in dowladdu ay tahay in marka ay muujiso inay mas'uul ka tahay dhulka, dadka iyo hay'adaha, isla markaasna aan lagu soo koobin oo keliya xukun. waa hagaag bal markaane aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. ugu yaran 2 qof ayaa ay ku dhaawacmeen weerar Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maxalliga ah maanta. madaxa maamulka gobolka Dnipropetrovsk Alexander Gancha ayaa waxa uu ku qoray Telegramka 2 qof ayaa la dilay 8 kalena waa ay dhaawacmeen, 1 qofna waa la la'yahay kadib weerar lala beegsaday magaalada Dnipro oo ku taala bartamaha bari ee Ukraine. magaalada warshadaha ee Dnipro ayaa in ka badan 100 kiiloomitir u jirta jiidaha hore ee dagaalka oo ku fidsan bariga iyo koonfurta dalka. dhanka Ruushka ugu yaraan 1 qof ayaa la dilay magaalada Novakovivsk sida uu sheegay Faisalay Fadrashev gudoomiyaha gobolka Samara, halkaasi oo lagu soo waramayo in diyaaradaha droniska ee Ukraine ay leedahay lagu weeraray, waxaana la sheegay inay ku dhacday mid ka mid ah saqafka dhismo sare. wadahadallada u dhaxeeya Kiev iyo Moscow ayaa haatan hakad ku jira iyadoo Mareykanku markii hore garawadeen uu ka ahaa, laakiin sabab la xiriira dagaalka ka bilowday bariga dhexe ayay u istaageen wadahadalladii dhanka nabadda ee u dhaxeeyay Ruushka iyo Ukraine. وهاجاج ورك كلا هاتن صنع يوحى كمده ملتريجا إسرائيل أيوحى يشتغيان إنا يكهرتجن درون لك اللبنان لقى صادري أو كسو وجهنيد كونفورتا ووقيجا إسرائيل أو كونفورت اللبنان لقى صادري وحنا لشيجيا تان إنا يكذب بيسي يكذب مركي عيدا كإسرائيل ساكي أي كوبلابين بربرين كوريا كيال كونفورتا ودكاسي اللبنان إلا إيا كونتون إيا شن تولة أو كيال xadka ayay Israa'iil ku wargelisay dadku inaysan ku soo laaban karin. waxaana kamid ah magaalada Nakhura halkaasi oo lagu soo waramayo in ciidamada Israa'iil ay ka wadaan burburin balaaran oo lagu hayo guryaha dadka rayidka ee reer Lubnaan. arrintan waxaa si adag uga hadlay madaxweynaha waddankaasi Lubnaan Joseph Aoun. waxaa sidoo kale uu dhaliilay weerar shalay Israa'iil ay dhimasho dhaawac ugu geysatay saxafiyiin kadib markii la dilay gabar wariyaha lagu magacaabi jiray Amal Khalil oo ka tirsan wargeyska Al-Akhbar, halka la dhaawacay haweeney kale oo iyadana saxafiyada. arrintan ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa inay ku soo aadayso xilli Xisbullah ay sheegayso inaysan u hogaansamayn wax wada hadal ah oo Mareykanka uu imika garhadin wada hadallada Mareykanku garwadeenka uu ka yahay ee u dhaxeeya Lubnaan iyo waliba Israa'iil. wixii warar arrimahan ay ku soo kordhaa barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo gudbinaynaa. waxaynu ogeyn in Mareykanku uu xanibaad saaray dekedaha waddanka Iiraan. markii arrintaasi ay dhag jalaq u siin weydina wuxuu bilaabay inuu la wareego ama uu qabsado maraakiibta Iiraan ay leedahay. marka Mareykanka ayaa ku horeeyay labadaasi tilaabo. Iiraanna waxay kaga jawaabtay in iyana ay beegsato maraakiib oo ilaa iyo 3 markab ayaa haatan lagu soo waramayaa Iiraaniyiintu inay weerareen. 2 kamid ah gacanta ayay ku dhigeen oo way haystaan, midna rasaas ayay ku fureen, laakiin uma suurtagelin inay gacanta ku dhigaan sababo jira awgood. inkastoo aan la cadayn sababahaasi, ma ciidamada ka soo gaaray, ma u suurtageli wada Iiraaniyiinta in markabka ay qabsadaan, ma ciidamo ayaa saarna, arrimahaasi oo dhan lama cadayn. waxaa kaloo hadda soo baxaya war ka soo yeeray waaxda Pentagonka waddanka Mareykanka oo sheegaya maraakiib 2 ah oo Iiraan ay leedahay in lagu qabtay xeebaha Asia. ilaa hadda lama sheegin meesha howlgalkaasi oo ka dhacay, laakiin waxa moodaa xitaa in la iskala gudbay marinka Hormuz oo hadda badaha caalamiga la isku baacsanayo. Iiraaniyiinta markii horeba maraakiibtooda cunaqabateyn ayaa saarnayd oo kuwada shidaalka, bacdaba Mareykanku uu saaray cunaqabateyn xagga shidaalka ah. meel kastoo caalamka kamid ah waa lagu beegsanayay, warow dhankan Shiinaha ay u furnaayeen oo mararka qaarkood waxay isticmaali jireen calanka Shiinaha ama waxaa la adeegsan jiray maraakiibta Shiinaha. sidaas ayaa inta badan Iiraan ay ku dhoofin tartay shidaalkeeda. maraakiibta marka ganacsiga badiya Mareykanku ma aysan qabsan jirin, laakiin hadda waxay bilaabeen markab konteenarada sida oo ka yimid Shiinaha oo ku socday
iiraan in la qabsaday xitaa arrintaas waxaa ka hadlay madaxweynaha maraykanka Donald Trump wuxuu yiri markabkii aynu qabanay konteenarada hadiyad buu siday shiinaha uu u diray Pakistan raalli ahaada iiraan arrintaas iiraaniyiinta way beeniyeen sidoo kale shiinaha si caralaha ay uga hadlay waxay sheegeen inaysan jirin wax hadiyad ah oo gaar ah oo shiinuhu u diray iiraan waxaa loo fasirtay hadalka madaxweynaha maraykanka inuu ula jeeday hub in shiinuhu u diray iiraan laakiin arrintaasi waxay noqotay arrin shiinuhu ay si adag u beeninayaan oo ay leeyihiin hadiyadna ma jirto hubna ma jiro aynu u dirnay iiraan marka hadda waxaad moodaa in arrintu ay marayso dabaaqtan iiraaniyiintu ay ka dabaaqtamayaan faralka maraykanka uu wado waxaan moodaa dagaalka hadda inuu ku wajahan yahay maraakiibta waaweyn ha noqdeen kuwa shidaalka iyo kuwa kale xamuulka ama konteenarada qaada sababta arrintan waxay salka ku haysaa maraykanka oo aaminsan in iiraan go'doomintan uu ku hayo miiska hadalka uu ku keeni doono oo cadaadis intuu saaro maraykanka hormuus laga xiro maraakiibtooda ay gudbin waayaan waxaasoo dhan inuu ka dhigo cadaadis laakiin dadka arrimahan ay ka faalloodaa waxay leeyihiin iiraan sidaasi mana ku noqomayso in miiska hadalka ay ku timaado ama cadaadis waayo waxaan oo dhan way u soo diyaar garowday oo way ka tashatay ayaa la leeyahay waa gartay waxaa soo baxaya warar sheegaya in haddii axadda la isku imaan waayo ay markaasi suurtagal tahay in dagaalka dib u bilaami doono maxaynu ka ognaa arrimahaas horta xalay warbaahinta waddanka maraykanka gaar ahaan shabakadda Axios waxay tabisay war sheegaya in ilaa iyo maalinta axadda Trump uu qabtay iiraan inay miiska hadalka ku timaado warbaahinta Israa'iil sida telefishinka Kanal 12 wuxuu sheegay maraykanku inuu ku wargeliyay Israa'iil ilaa iyo axadda in waqtigaasi uu yahay kama dambaysta ah laakiin aqalka cad ayaa goor dambe oo saqdi dhex xalay war u soo saaray wuxuu ku beeniyay inaysan jirin waqti cayiman oo xabajujinta ay ku ag tahay isla markaasna aysan jirin wararkan warbaahinta ay faafiyeen dhankaas markaad eegto waxaad moodaa rajo inay jirto laakiin maraykanka hadiyo goorale weligiis wuxuu caan ku ahaa gaar ahaan colaadan hadalla iskhilaafsan ay ka soo yeeraan waa anigii ka warqabnay markii la lahaa maalinta talaadadii waxaa tegi doonaa madaxweyne ku-xigeenka maraykanka JD Vance magaalada Islamabad warar iskhilaafsan ayaa ka soo yeerayay maraykanka Trump wuxuu lahaa ma tegayo mar wuxuu yiri waa tegaya aqalka cad xitaa Trump oo yiri ma tegi doona ay aqalka cad waxay yiraahdeen hadduu safraya wuu tegaya marka jahwarin ayaad moodaa in arrintaasi ku jirto bilaabashada dagaalka waa suurtagal dad badan waxay leeyihiin hadda Trump wuu dejiyay luuqadii adkayd iyo hadaladii kulkulula tan iyo markii xabajojinta uu kordhiyay dad badan marka waxay leeyihiin arrintaas waxa loo fasiran karaa inuu diyaarinayo duulaan degdeg ah waxa kaloo suurtagal ah Israa'iil inay weerar qaado ayadoo xitaa maraykanka aan la tashan oo markaasna maraykanka ama isla og yihiin oo maraykanku yiraahdo Israa'iil ayaa weerar ka qaaday anaguna qaybteena ayaynu ka qaadanaynaa oo markaasi Israa'iil ay fursad u hesho wufuudan wada xaajoodka iyo mas'uuliyiinta kale ee Iiraan inay degdeg ku baagsato xitaa maraykanka qudhiisa waa dhici karta in uu hadda aaminsan yahay Iiraan miiskooda hadalka inay imaan weyday sababo la xiriira cadaadis kala saaray marka dagaalka toos in uu bilowdo dagaalkan wuxuu ku bilaaban karaa sidii bishii March 28keedii uu ugu bilowday in la dilay hogaamiyihii sare ee Iiraan wasiirkii gaashaandhigga iyo mas'uuliyiin kale in markan sidoo kale la isku dayo xubnaha ugu muhiimsan ciidanka ilaalada kacaanka iyo hoggaanka Iiraan in degdeg lagu baagsado oo markana ay noqon kartaa arrintu inay tahay inta dhiman aynu baagsano waxa kale oo suurtagal ah waxaan oo dhan in loola dilinayahay in la helo xogtiisa hogaamiyaha sare ee Iiraan Mujtaba Khamenei ama ha noqoto xiriir uu la sameeyo mas'uuliyiinta wada xaajoodka ku jira ama inuu iskala dhigto oo yiraahdo suurtagal waxa in xabajojin ay jirto cidna ku baagsamayso oo markaasi la ogaado meesha uu ku sugan yahay iyo xitaa macluumaad sirdoonka inay ku hawlan yihiin maraykanka iyo Israa'iil Iiraaniyiinta laakiin waxaan way ka fog yihiin baa la leeyahay oo waxaan dhow ay la socdaan arrinta xiisaha leh waxa weeye maraykanka iyo Israa'iil si ay u dhaqmayaan Iiraaniyiinta way ka duwan tahay sida ay u dhaqmeen wixii ka dhacay meelo badan oo caalamka ka mid ah gaar ahaan wadamada bariga dhexe dadkan Iiraaniyiinta waxa laga hadlayaa boqolkiiba 90 iyo ka badan dad wax qora waxna akhriya dadkan hadda hoggaanka haya afartan inuu hadda golaha sare ah iyo guud ahaan haddii ay noqon lahayd ciidamada
hoggaanka ciidamada haddii ay noqon lahayd dowladda iyo qaybaha kale xitaa culimada waa dad aqoon-yahan ah waddanka marka waxa weeye waa waddan maraykanku uu ku qaldamayo oo uusan fahamsanayn xuduntooda iyo duxdooda waxa ay tahay halkaas marka waxa weeye meesha qaladka uu ka jiraa si kastoo iskugu daya maraykanku inuu ama gacadmo sameeyo ama uu weeraro waxaa laleeyahay qof kasta oo la dilo qofkii bedeli lahaa qofkaas haddii la dilo kii bedeli lahaa ayaa laga shaqeeyey dagaalkanna muddo 20 sana ayay iiraaniyiintu isku diyaarinayeen laakiin maraykanka iyo israa'iil wax hadaf ah oo dagaalkan ay kala haayeen oo weyn ama ay gaareen ama u degsanaa runtii ma jiro waayahay waxa ugu weyn ee hadda la isku haya maxay yihiin marka arrinta ugu muhiimsan waa cadaadiska maraykanka iiraaniyiintu waxay leeyihiin qoorqabad ku tegi mayna miiska wada hadalka waayo waxay aaminsan yihiin inaan laga guulaysan 40 maalmood oo dagaal ayaad gashay si kastaa noola dagaashay wax walba samaysay miiska wada hadalka ku tegi mayna hanjabaad iyo qalin waxaan ku tegaynaa miiska wada hadalka inagoo siman oo diyaar ah ayay leeyihiin iiraaniyiinta oo ka wada xaajoonayna aniga maxaa idana adiga maxaa ku dana maxaa noo wada dana gobolka maxaa u dana caalamka maxaa u dana haddii intaasi ay jirto miiska wada hadalka waa tegaynaa haddii intaasi wax ka sokeeya ay jiraan ma tegayno kow waa inaad qaadaa go'doominta dekedahana la saaray ayay leeyihiin iiraaniyiintu labo xabajoojin guud oo gobolka ka dhacda saddex ajendayaasha aan ka wada hadlayno waa inay cad yihiin ilaan madaxweynaha maraykanka 10kii qodob ee iiraan ay soo gudbisay asagaa wuxuu yiri waa 10 qodob oo wanaagsan oo furo u noqon kara bilowga nabad iyo wada xaajood iiraaniyiintu marka waxay leeyihiin 10kii qodob aan ka wada hadalno oo fariisanno marka arrinta la isku hayaa waxay tahay go'doominta waa tan ugu weyn waayo markii heshiiska xabajoojinta la gaaray iiraaniyiinta ayaguna waxay ku dhawaaqeen inay la furay marinka hormuus isla markiiba maraykanku wuxuu ku dhawaaqay in iiraan go'doon la geliyay dekedaheeda marka cid kastoo isku dayda inay wada xaajoodkan kamana dhaliso waa in ay ka shaqaysaa horta go'doominta laga qaadaa iiraan waayo dadka iiraaniyiinta waxay arkayaan dagaal in lagu qaaday xaaladdu ay ka duwan tahay xilligii hore hogaamiyahoodii la dilay dhaqaalahoodii dhaawac weyn loo geystay in badan oo ka mid a magaalooyinkii la burburiyey marka waxay leeyihiin maxaan ku dooranaynaa wada hadal iyadoona laku hayo dagaal ileen cunaqabatayntu waa dagaal marka qodobka ugu weyn ee laysku haya waa qodobkaas talaabana wuxuu rabaa inuu yidhaahdo waxaan ku qasbay iiraaniyiinta inay miiska wada hadalka yimaadaan meeshaas weeye marka meesha laysku fahmi la'yahay waa gartay ugu dambeyn gabagabada ayaanu kusii dhownahay mawlid dagaalkan waxaa mugdi ku jira hadaafta ay kala wataan maraykanka iyo israa'iil maxay quburad ka tiri arrintaani ilaa hadda waa laysku maadhaafsan yahay waa tan koowaad Trump hadda isagu ma doonayo in meesha ay ka baxaan hoggaanka Iiraan iyo dowladda Iiraan oo ay burburto dan uguma jirto wadamada reer Yurub maraykankana dan uguma jirto waayo meesha waxaa ka soo bixi kara fawdadaas waa 90 milyan dadka Iiraaniyiinta ah cid walbay saameynaysaa Turkiga saameynaysaa Pakistan bay saameynaysaa Afghanistan bay saameynaysaa wadamadan waxay saameynaysaa khaliijka marka cid dan ugu jirtaa ma jirto xitaa ayagoo nacab Iiraan in ay burburto oo kala firdhato oo ay noqoto dowlad fashilantay laakiin hadafkaas markuu wato maraykanku Netanyahu ma hadafkiisa kaas asagoo wuxuu doonayaa Iiraan oo isku dhaxayacsan awood aan lahayn jilbaha dhulka dhigtay hubkeedii la burburiyay gabi ahaanba marka haddii xitaa ay noqoto in maraykanka Iiraan isfahmaan oo la isku afgarto arrinta uraniumka ama Iiraan ha dhinto oo ha geyso 20% 3.67 heerkii markii hore lagu heshiiyay 2015 ama xitaa Ruushka ku wareejiso ama Shiinaha ku wareejiso uraniumka ay horay u bacrimisay ama u tayeysay markasta Israa'iil waxay qabtaa dood ah gataalada Iiraan ha lagu soo daray heshiiska ha joojisay Iiraan iska caabinta ay taageerayso Xisbullah Xuutiyiinta kooxahan Ciraaq ku sugan iyo sidoo kale Falastiiniyiinta Iiraan arrintaas marka ma yeelayso xitaa hadafka wada hadalka iyo xabajoojinta ayaan la isku raacsanayn oo Mareykanka iyo Israa'iil isku raacsanayn taasna waxay noqon kartaa caqabad
laakiin israa'iiliintu waxay arkayaan Trump waxa uu ka suurtageli karaan oo laga yaabo inuu yiraahdo heshiis baan gelaynaa kamana hadli kartaan sida Xuutiga oo kale ula heshiiyo oo kale waxa dhici karta Mareykanka iyo Israa'iil inay Mareykanka iyo Iran inay gaar u heshiiyaan oo laakiin haddana ay sii socdaan dagaalada u dhaxeeya Israa'iil iyo Iran Mareykanka indhaha uu ka fiirsado oo yiraahdo anaga danaheena iyo saldhigyadana ha weerarina adika idin taala waa haddii Israa'iil ay diido Mareykanka wuxuu u soo qaado marka ahdaafta labada dhinac ayaan iswaafaqayn marka runta laga hadlayo waa gartay ugu dambeyntii Mawlid ilaa hadda yaa la oran karaa libanta uu gaaray dagaalkan oo gacanta sare yeeshay طبعا Trump horta wuxuu leeyahay waan guuleysanay wasi hadalku dhigay wuxuu leeyahay waxaan meesha ka saarnay hogaankii hore ee Iran oo waxaan meesha yimid hogaan cusub taan wax kama jiraan gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Baaqir Qalibaaf waa nin ka tirsanaan jiray ciidamada IRGC waa nin aad iyo aad saaxiib ay yihiin isku fiican yihiin hogaamiyaha sare Mujtaba Khamenei warar xitaa waxa jira sheegaya hadda ka hor markuu isku sharaxay madaxweynaha in Mujtaba Khamenei aabis markaas waa noolaa wuxuu doonaya Qalibaaf inuu noqdo madaxweynaha Iran laakiin doorasho dhacday waxaana guuleystay inkastoo uusan tartamin Qalibaaf uusan tartamin oo laakiin doorashada uu ka haray laakiin Mas'uud Pezeshkian ayaa guuleystay waa markii uu dhintay Ibrahim Raisi oo doorashadu ay dhacday halkaas marka waxaad ka garanaysaa gudoomiyaha baarlamaanka oo ergada Mareykanka la xaajoonaysa hogaaminayay inuu yahay nin ka yimid IRGC dagaalkii Ciraaq iyo Iran buu ka qayb galay waa nin duuliye diyaaradaha dagaalku wadi jiray raggan kale oo dagaalka hadda sii hogaaminaya taliyaha ciidamada lugta taliyaha ciidamada badda taliyaha ciidamada cirka Musawi taliyaha xarunta Khatim al-Anbiya waxaas oo dhan waa rag nidaamkii hore ah ku sii dar ninka hadda aynu ka hadlaynay Ejai oo garsoorka haysta oo hadda maalin kasta dadka ku fulinaya xukunka dilka ah gudoomiyaha magaalada caasimadda ee Tehran oo aad garanaysa magaalo weyn ah nin kaalin weyn kaga jira dawladda ah waxaas oo dhan waa ragga taabacsan hogaamiyaha sare oo aan ogolayn waxa la yiraahdo gorgortan iyo isbedel in la sameeyo marka Trump horta wuxuu ku sheegayaa sida qobarada ay sheegayso hadalla aan dhab ahayn ayuu ku sheegayaa dhinacaas marka laga eego Iran inay guuleysato kaliya ayada waxa u ah nidaamka inuu jiro gantaaladeeda ay jiraan nuclearka ay tayeysay uraniumka ay gacanta ku hayso Mareykanka Hormuz gacanta ay ku hayso Mareykanka uu la xaajoonayo ay qasabtay xabadda in laga joojiyo Lubnaan gacanta sana marka Iiraaniintu waxay ku yeelan karaan iyagu waxa weeye inay jiraan horta oo aan laga guuleysan oo aan la jabin taasa waxay u tahay guul Mareykanku laakiin wuxuu sheeganayaa waan guuleysanay Iran waxaan awoodeeda burburinay waxaas marka waa afka sheegasho ilaa iyo hadda waxa la oran karaa cidda guuleysatay inay tahay Iran ma ahan guusheed in Mareykanka ka guuleysatay ama ay jibisay ama Israa'iil ay jibisay ma ahan inay jirtaa guul u ah ayada saasay qobaradu leedahay marka jiritaanka la isku haystaa waa meesha laga yiraahdo yaa goobtii helay marka la dagaalamo furintii yaa meeshii lagu dagaalamay yaa ku guuleystay meesha laga yiraahdo weeye taasa marka waxay cadeynaysaa Iiraaniintu inay yihiin cidda ilaa iyo hadda gacanta sare leh iyagana go'aaminaya qodobada heshiiska 10 kan qodob oo xabadda lagu joojiyay oo Trump uu qiray inay yihiin saldhig in laga wada hadlo mid kamid wuxuu dhigaya ciidamada Mareykanka inay ka baxaan bariga dhexe haddii marka madaxweynaha Mareykanka uu ogolaaday qodob kamid ah qodobadaasi in laga hadlo waxa diiday marka in Iran way guuleysatay waayo guush waxa weeyaan Iiraaniinta jiritaankooda